waxaan idin leeyahay maalin wanaagsan waxaan rajeynayaa in aad ku soo nabad toosteen adinkoo diyaar u ah in aad ka soo qayb gashaan barnaamijka maanta noo furmi doono oo ah barnaamijka tartan aqooneedka sanadka 2022 marka aad iyo aad u mahadsantihiin tartankeena wuxuu noo furmayaa maanta oo ah maalin Arbaca waxaan rajeynayaa in barnaamijkeena uu noogu bilaaban doono qaab qurux badan nooguna soo gabagaboobi doono qaab qurux badan marka dhammaan ardayda waxaan ka codsanaynaa in ay si qurux badan ay barnaamijka u dhageystaan ardayda kale oo tartamayana ayagana waxaan u rajeynaynaa guul iyo in ay maanta labada groupka guuleysto waa groupka kale oo guuleystay lama kala guuleysanayo laakiin waa la tartamayaa dhibcaha groupka ay raacaan ayaan si gaar ugu hambalin doonaa insha Allah tartanka waa tartan sanad kasta la qabto sanadkan wuxuu ka duwanaa doonaa sanadadii hore sida aad dareemaysiin isbedel aad iyo aad u sareeya ayaad u jeedin ardaydii oo intii ka badan fasalladii oo sidii ka sii badan macallimiintii iyo iskuulkii oo aad iyo aad horumar iyo update u sameeyay marka waxaan rajeynayaa in barnaamijku aad iyo aad u xiiso badin doono barnaamijku wuxuu socon doonaa muddo 6 ilaa 7 bilood oo soo socota barnaamijku wuxuu yeelan doonaa abaalmarino aad iyo aad u sareeyo oo hore aadan nooga baranina markii barnaamijkan uu dhamaado fasallada guuleysto oo kala ah fasalka kaalinta koowaad galo iyo fasalka kaalinta labaad galo waxay heli doonaan abaalmarino qaarna aan sii shaacin doono qaarna aan qarin doono dawladeedmo tartanku kaalinta koowaad fasalka ku guuleysto waxa uu heli doonaa koob aad sad u taqaaniin aad iyo aad u qaali ah iyo abaalmarin aad iyo aad u sareyso oo lacag ah lacagta waan dib ayaan ka soo sheegi doonaa laakiin waxaan hubaa in aad iyo aad loogu farxi doono hadda ka horna iskuulku uusan bixin lacag intaas qiimaheedu uu gaarayo laakiin waxaan rajeynayaa in ballanqaadkaas maanta aan sameynayno oo noqon doono barnaamij lacageed oo aad iyo aad ugu farxaan galaaska galo kaalinta labaad ayagana waxay heli doonaan abaalmarin lacageed sidoo kale ay heli doonaan marka waxaan rajeynayaa in aad iyo aad loo tartamo oo tartanku uu noqdo tartan fasalladu aad iyo aad ugu tartamaan sida caadiga ama idinku qoran waraaqda halkaas la idinku dhajiyay tartanku ma ahan isdagaal xanaaq iyo in la xifaaltamo tartanku wuxuu noqon doonaa tartan wanaag ayaa loo baahan yahay tartanka labadii fasal oo tartamayo waa laba walaalo ah waa laba fasalka waa isla iskuulka isla dhigato waa bahda almustaqiim waxba ku kordhin mayso marka in arday kale aad si xun aad u fiiriso ama aad qaab wax ma taqaanid iyo waxay ma taqaanaa ardaydu waxay sameeyaan markii tartanku dhamaado in la isku buuqo ee la yiraahdo ardayga wax ma ahayn adaana qalad adaan ugu sameysay wixii dhici rabo 1000 sano ay ka weynaya Soomaalidu dhahan marka hadii la guuleysan rabo waa guul Ilaahay noo qoray hadii maanta saddexda dhibcood laga qaatane waa wax ku qornay mooyee wax hadda adiga aad dadaaliridaada ku yimid ma aha wayda ognahay dhamaantiin waa soo dadaasheen xalay aad dhafarteen tartanka marka sidii waqti aad ugu bixiseen waxaan idin rajeynayaa inuu aad iyo aad u qurux bato marka tartanka waa noo furan yahay waxaan igaga dambeyn doona agaasimaha oo si rasmi ah noogu sii furi doono marka iyo macallimiinta ka dambeeyaan waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu mahad celiyo macallimiinta aad iyo aad uga soo shaqeeyay barnaamijkan mid dhamaad ilaa bilow in ay gacanta ku hayaan haddana aad dareemaysiin in wax badan ay qabteen wax badan ay noo qaban doonaan marka waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa guddiga tartanka waxaan leeyahay dadaalkiina halkaas ka sii wada waxaan idin rajeynayaa in dadaalkiina Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu idinka abaal mariyo ardaydana waxaan u rajeynayaa in ixtiraamaan macallimiintooda iyo dadka barnaamijkan ka shaqeynayo السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلام كدب إلهي سبحانه وتعالى يا ماد سكله مركا حنا جيفنا كدب أنا وعافمات قبنا سوكينا كينسي أنا هو لهني وحبر الشيء عندي بوسي وذنو النبي عليه الصلاة والسلام حكسونا عطيه قفك مركا يسوح هذه إيده نبض قبت سواك عضو إلى هذا الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور مركا دمانتين ما دام أن سوا عافمات أنا وعافمات قبنا سواك عني وإنا إلهي سبحانه وتعالى وشكرنا waxaa laga yaabaa sida anaga camal dad fara badan oo xala u jiifteen in sida mowdka uu imaado ayagoo jiifaan qaar waxaa laga yaabaa ayagoo xalay caafimaad qaba sida anaga jiifteen laakiin ay soo kaceen ayagoo xanuunsan marka maadaama anaga caafimaad qabnaa soo kacnay waa inaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala u shukrinaa bacda alxamdulillah waxaa sidoo kale aad iyo aad ugu mahad celinayaa guud ahaan macallimiinta
iyo gaar ahaan guddiga tartanka oo runtii nidaamkan iyo qaabkan quruxda badanne uga soo shaqeeyey sanadkan tartanka intaas kadib waxaa iyagana mahadsan dhammaan ardayda sidoo kale miidiyaha mascuudna aad u mahadsan yahay intaas kadib waxaan insha allahu tacaala maanta noo furmaayo tartan aqooneedka sanad dugsiyeedka 2022 oo runtii sanad walba iskuulka uu qabto ujeedada marka tartanka loo qabanaya waxay tahay in ardaydii sidaan oo kale isku soo dhex galaan casharada dib la isku xasuusiyo waxaa ka mid ah ujeedooyinka oo kale in tartanku waa qayb ka mid ah macnaha muraajacada waxaa laga yaabaa maanta su'aalaha ama tartanka intuu socdo su'aalaha qaar ee halkan laydinka weydiin doono inay imtixaanaadka ku imaadaan marka waa qayb ka mid ah muraajacada ee tartanka dhihi karnaa marka insha allahu tacaala dhammaan ardayda waxaa looga baahan yahay inay si maxaan ku dhahay degan ula socdaan tartanka su'aal walba halkan ka bixi doontana ardayga uu qorto haddii dib u soo laabato si ay u fududaato in laga jawaabo runtii sanadkan tartanku waa ka duwan yahay sanadihii la soo dhaafayay markii loo fiiriyo nidaamka iyo qaabka loo soo habeeyey sidoo kale isbedelada badan oo aad arkaysaanba waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala maanta fasalada lagu furaayo oo ah 5aad iyo 7aad inay halkan kusoo jeedi doonaan tartan aad u qurux badan hadduu ilaahay yidhaahdo annaguna insha allahu tacaala qaybteennii hambalyada iyo maxaan ku dhahay bogaadinta insha allahu tacaala waa ka qayb qaadan doonaa ujeedada marka hadda annaga maamul ahaan halkan maanta uga hadlaynay muhiimaddii tartanka ma ahan insha allahu tacaala guddigii tartankaa joogo oo shuruudihii tartanka iyo dhammaan inta muhiimsana noo soo jeedi doonaan annaga marka qaybtii furitaanka leyn tartanka waa noo furan yahay aad iyo aad aa martiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Al-Mustaqim Foundation waxay mas'uuliyad iska saareen in ay caawiyaan caruurta agoonta ah oo ay dabaraan waxbarashadooda, buugaagtooda, qalimaantooda iyo dharka iskuulka ay ku dhigan lahaayeen iyaga oo kaashanaya dadka Soomaaliyeed waxaad sanadkii bixin kartaa $360 ama 6 bilood 180 ama xitaa 3 bilood $90 oo kaliya si aad u caawiso wiil ama gabar yar oo agoon ah oo aan haysan waxbarasho iyo garab adigoo helaya xiriirka qofkaad waxbarashadiisii damaanad qaaday waxa kaliya adduun iyo aakhira ku anfacaya waa sadaqo waliba agoonta waa laga dardaarmay shaah iyo shaxaad shilimaad aad ku bixiso ha ku badbaadi waynin qof dhan mustaqbalkiisa